ciidamada booliska gobolka Togdheer oo muddooyinkii u dambeeyay waday howlgallo ballaaran oo lagaga hortagayo mukhaadaraadka isla markaana lagu xoojinayo ammaanka ayaa saldhigga Faarax Omar ee magaalada Burco ku soo bandhigay khamri tiradiisu dhan tahay 587 dhalo iyo 3 kamid ah gaadiidkii lagu siday khamrigan. Sidoo kale ciidamadu waxay halkaasi ku soo bandhigeen hubka loo yaqaano burka iyo toorida oo ay ka soo ururiyeen dadweynaha magaalada Burco, waxaana goobtii lagu soo bandhigay khamrigan iyo hubkan koobjoog ahaa maamulka gobolka Togdheer, saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliska, gudida wanaag farista iyo xumaan reebista gobolka. Taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer Kaashaanle Sare Maxamed Faarax Nuur ayaa ugu horeynba ka warbixiyay khamrigan iyo hubkan ay soo bandhigeen. idin socodsiinaya inaan halkan ku soo bandhigay mukhaadaraadkii ay qabteen gobolkan Togdheer, gaar ahaan saldhigga dhexe iyo saldhigga Faarax Omar. khamrigaas oo ah marka la isku geeyo 587 dhalo. khamrigaasi oo aanu ku qabanay laba Land Cruiser oo hadda halkaa jooga iyo khamri aan ogaanay oo loo soo sheegay meel lagu aasay. khamrigaasi haddaan si yar dhex galo dhalooyinka markaanu eegnay, khamrigu wuxuu expire ahaa noqday 2015 dhowr sano buu expire. xarfaanteenan khamriga keentaa khayr kuma ogine waxay soo xaabsanayaan waxa dhacay buu dadka iibinayaan. labadii gaaro waanu haynaa iyo xabatiga oo iyaduna intay meel ka soo qaaday suuqa la dhex sootana waanu qabanay. marka waxaan leeyahay reer Togdheerow iska ilaaliya beer ku jarjaraya khamrigaas. waxa kaloo jira waxa la yiraahdaa xashiishadu way yartahay. inta badan waxaanu qabanaa xidhan xashiishad la cabayo oo sigaar xabad sigaar la isku dhiibaya. dhalinyartiina way wada gaadhay. xabad baanu ku qabanaa, laakiin se wali khadkii weynaa waanu ku soconaa. insha Allah waanu helaynaa. talabaad soo raacday waxa weeye bahashan la yiraahdo baashan la cabay carruurta xabagta. waxaan uga digayaa ganacsatada inaan xabag laga iibin karin inaan yaroo socda amba nin aan meherad lahayn. ninka muxuu ahaa taayirka banjariya kuwana sharci baan soo dejin doonaa, waayo suuqi baa la isla dhex marayaa. waanu ka hawlgalaynaa, laakiin se ganacsatada aanu ku qabanno waxa weeye jeelka loo diraya. laakiin se ha iibiyaan waxaan leenahay layn sax ah loo maro. ulaha faraha badan leh iyo tooreyda waxaanu suuqa dhexdiisa aanu ka qaadnay, dadkaanu ka ururnay. kuwan baanguhuna waa tuugtii, laakiin se kuwa uluhu tuug maaha. dadkaanu ka ururnay si aanay qofka ugu dhufan oo magaaladu caadisato. kadibna anagoo gurayno gawaarida ku guranay si fiican ummadii shacabka noo garaaceen. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay ciidanka booliska gobolka Togdheer dadaalka iyo juhdiga ay ugu jiraan xoojinta ammaanka iyo la dagaalanka maandooriyayaasha kala duwan ee uu ka mid yahay khamrigu. waxaan u mahadcelinayaa ciidanka bilayska ee gobolka Togdheer oo runtii waajibkiisii qaran oo firfircooni iyo karti dheer iyo runtii ku daray labadii asbuuc ee u dambeeyay ololihii ay qaadeen oo runtii socon doona. ololahaasi mid istaagaya ma noqon doono. ay ku soo qabteen maanta waxa idin hor yaalla oo ah khamrigaas iyo hubka kala duwan, hadday toore noqotay, hadday bud noqotay iyo hadday ay noqoto baanga noqotaba. Mahad Ibraahim Aadan Mahad Soomane, warbaahinta qaranka Somaliland, Burco.